war degdeg ah oo haatan ina soo gaaray daawadayaal waxa uu sheegayaa in garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cusmaan aadan cadde goordhow laga soo dejiyay meydka allaha u naxariista ee gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo laga keenay dalka qatar. garoonka aadan cabdulle cusmaan waxaa ku sugnaa guddiga qabanqaabada aaska injineer yariisow iyo weliba boqolaal shacab ah kuwaasi oo meydka ku sugayay garoonka diyaaradaha aadan cadde. sidoo kale waxaa halkaasi ku sugnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaare xasan cali khayre, gudoomiyaasha labada aqal ee dalka iyo sidoo kale mas-uuliyiin badan oo ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya. islamarkaana waxaana garoonka lagula tukanaya salaada janaasada meydka gudoomiye yariisow. aas heer qaran ah ayaa magaalada muqdisho loogu sameyn doonaa gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo uu u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qarax ka dhacay xarunta gobolka banaadir. muuqaalada kale ee aaska gudoonka waan idin soo gudbinaynaa. fadlan haddii aad inagu cusub tahay subscribe channelka si aad inala socoto muuqaaladana kale iyo waxyaabaha kale aynu soo gelinayna bartan.